waxaan u wanaagsan asxaabteena qaaliga waa markale barnaamijyadeena maanta waxaan idin tusayaa xuduudda u dhaxaysa Mareykanka iyo Ruushka. Waad yaabaysaa baan u maleynayaa marka ugu horreysa aad maqashaan inay xuduud leeyihiin wadamada Mareykanka iyo Ruushka, laakiinse xuduudooda ugu dhow ayay leeyihiin 17 kilomitir ilaa iyo 14 kilomitir way isku jiraan sida caadiga ah. Markaas halkan ayaan idinku tusayaa si faham ballaaran aad ugu yeelataan. Dad badan ma oga, laakiin arrintaas oo xaqiiqada jirta ee saxda ah. Marka koowaad halkaasaan imanaa. Markaan halkaa imano, kan waa barnaamijka lagu eego cimilada, saadaasha cimilada iyo waxyaabahaas barnaamijyadan lagu eego weeyaan, oo maapka adduunka tusinayo. Haddana saas ay tahay, halkan markaan imano 3D baan ka dhiganaynaa markuu sidan noo yahay. Halkan air quality halkaas uga qorantaan kalik leenahay. Air quality-ga markaan ku dhufano 3G aan ka dhiganaynaa, aan kalik leenahay halkaa 3G ka qoran tahay. 3G markaan ku dhufano kadib wuxuu noo tusinayaa qaabka saxda ah ee qaaraduhu ay sida kubadda ugu taalo. Maxaa la dhahaa 8 planet-ku iyuu na tusinayaa. Markaas tani noo muuqatay ugu sokayso waa Mama Africa, waa qaaraddii Afrika weeyaan tani. aadi umay soo wada kicin. Markaas waxaad odhanaysaan Ruushka oo ku yaala halkaas, Mareykanka halkaa ku yaala maxaa isku keenay baad odhan karaysaan. Ninka tusaale waa kan adduunku sida caadiga sidan buu yaala, sidiisa saxda adduunka waa kubaddan adduunku, kubaddan weeyaan. Tan waa Mama Africa sida caadiga ah. Tan Mama Africa weeyaan tani. Markaas Ruushku sida caadiga waa kan halkan ku yaala. Markaas halkayba xad ka leeyihiin Mareykanka aad soo wadaan kulley oo waad yaabantii baan u malaynayaa. Ruushku waa waddan ballaaran sida caadiga wuxuu la leeyahay xad dhankan maxaa la dhahaa waqooyiga Yurubta iyo bariga Yurubtan, wadamadan bariga Yurubta ku yaalo iyo waqooyiga Yurubta iyo xad kala leeyahay dhanka Yurubta. Dhanka Aasiada waa kuwan wadamadan iyo xad kaga leeyahay Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, wadamadan oo dhan, Mongolia, China laftiisa, North Korea, waxaas oo dhan iyo xad dhankaas kala leeyahay Aasiada. Laakiin Mareykanka sidee bay xad ku yeesheen baad soo wadaan. Ruushkii ilaa imika, Ruushkii sida caadiga waa kaas qaarad maxaa la dhahdaa waddanka Ruushka oo waddan ballaaran oo ilaa halkaas Mongolia, Japan ilaa halkaas ka gala. Halkaas buu soo maray xadkiisii, maxaa la dhahdaa qaaradiisa ama maapkiisiiba halkaas uu soo maray. Mareykankii waa kan halkan idin muuqata, halkaas idin muuqata waa state-ka la yidhaahdo Alaska ee Mareykanka ka tirsan. Kan waa Ruushka, kan waa Alaska. Intaa yare badda ah oo 14 kilomitir ah ayaa u dhaxaysa labada waddan ee Ruushka iyo Mareykanka. Markaas maxaa la yidhahdaa haddayna halkan ayna jiri lahayn sida caadiga ah, maxaa la state-kan Alaska Mareykanka waxa ka iibiyay isla Ruushkani iyo ka iibiyo waxay ahayd qayb ka mid ah Ruushkani ahayd. Kadib Mareykanku sidaas kula wareegay Alaskadan. Canada weeyaan toos wuxuu Mareykanku xad la yeelan lahaa Canada. Halkan hadday Ruush aan lahayn oo iibin lahayn Canada toos ula yeelan lahaa. Mareykanku laakiin Canada maadaama ka hooseeyo waa kan weeyaan. Waa kan Mareykanku uu ka hooseeyaa maxaa la dhahaa Canada oo waa kaas isagu. Sida caadiga ah u toosiyaan isla waa kaas Mareykanku Canada uu ka hooseeya. Ruushkii waa ka marka si caadi ah idinku muuqato. Halkan Ruushkii weeyaan oo waddanka Ruushka. Halkan waa Alaska oo ka tirsan ii sheegay maxaa la dhahaa waddanka Mareykanka ka tirsan. Alaska weeyaan halkani oo Mareykanka ka tirsan tahay. Canadana waa tan ilaa halkaas. Marka Ruushku Mareykanka wuxuu leeyahay xuduud gaaban oo ilaa 14 kilomitir ah. aad ayuu ugu dhow yahay bay ka dhigantay. Aad iyo aad baad mahadsantahay saad ula socdeen barnaamijkeena. Barnaamijka qaybihiisa kale si aad ula socdaan fadlan soo follow gareeya qaybaha barnaamijka.